السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسودو الخليجي برامجyada inta badan aan ka hadalno waxaa ka mid ah teknolojiyada iyo horumarinta haddii aad ku cusub tahay janaalkeena fadlan subscribe like share si asxaab badan ay u faa'iideystaan muuqaalada mar walba aan soo gudbino waxayna tahay dhiirigelin asxaabtaada inaad la wadaagtid aad u share garaysid mushaarkaada markaad soo qaadatid waxaad u qaybinaysaa saddex qaybood saddexda qaybood waxaan ugu hadli doonaa insha Allah muuqaalkan waxaan rajeynaa buug iyo qalin soo qaado si aad u nood garaysatid waxaad aan kula wadaagi doono saddexda qaybood waxa waaye boqolkiiba 50 boqolkiiba 20 boqolkiiba 30 in mushaarkaada aad u qaybisid waxaa kuu soo bixi doona xal fudud ama mushaarkii bishii aad ku maarin doontid insha Allah xalka koowaad ama qaybteena koowaad wuxuu noqonaa boqolkiiba 50 mushaarkaad bishii inaad u qaybisid halkaas waxaad ku fududeyn kartaa mushaarka bisha guriga korontada biilka guriga haddii aad u baahan tahay waxyaabo kale familka ay u baahan yihiin inaad ku maaraysid boqolkiiba 50 inaad siisid ciwaankan waxaan ku qaadan doonaa insha Allah haddii rabbi ka noqdo bilaaban doono sanad cusub sanadkaas cusub sidee ayaad u qorsheyn kartaa qorshe fiican sanadkaasi howlgar lahayd sida u degsan kartaa insha Allah waxaan rajeynaa dhowr qodob aan kula wadaagi doono haddii aad samaysid taxana aad ka dhigatid waxaan rajeynaa insha Allah gool fiican inaad ka degsatid aniga sambal ayaa soo diyaariyay xariiqa qorshahaada inuu ka duwan yahay qorshaha hadda aan kula wadaagi doono laakiin waxaa fiican mar walba inaad qorsheysid sanadkaada wax bil walba waxay u baahan tahay qorsho maalintaada waxay u baahan tahay qorshahaada hadduu ku hagaago maalinta wax walba aad qabsan lahayd wuu ku hagaagaa insha Allah waxaan rajeynaa inaad ka faa'iidi doontid haddii rabbi ka noqdo qorshaha ugu horeeya ama qorshaheena sanadkeen cusub waxa waaye inaan barto luqado cusub luqadaha cusub waxay noqon karaan kuwa qaarkood hore u yaqaan way jiraan Englishka iyo Carabiga waxaan rabaa luqadahaas inaan horumariyo luqada cusub inaan barto sida Turkishka luqada Turkiga ama luqada Englishka inaan horumariyo Carabiga inaan horumariyo kuwa qaarkood waa taqaanaan laakiin waxay u baahan tahay joogteen wax walba la sameeyo inaad ku mar walba ku celcelisay u baahan tahay tusaale ahaan marka shaqo ama xirfad aad baratay xirfadaas hadaan ku shaqeynay ugu dambeyn maalintii xigta ama haddii aadan ku shaqeynin waxaa laga yaabaa xirfadaas inay ka lunto inaan barto luqada cusub Englishka Carabiga iyo Turkiga waxayna qayb ka qaataan horumarinta wax walba hadda waxaa arki doontaa insha Allah marka traveling adduunka aad samaysid luqadaha waa Englishka iyo Carabiga waaye hadda wadamada qaarkood dad u socotid sida Turkiga ama wadamada Carabta luqada Carabiga inaad taqaanid waaye xirfadaas ama skillkaas ama qorshaheena koowaad sidaas waaye qorshaheena labaad waxa waaye inaan horumariyo xirfadaha hadda aan ku shaqeeyo sida graphic designka video editingka iyo barnaamijyada motion graphics-ka inaan horumariyo iyo xirfado kale hore u jirin caalamka inaan barto xirfad walba markaa baratid inaad soo bandhigtid sidee soo bandhigi kartaa inaad samaystid baraha social media platforms qaybahiisa kala duwan waa digital marketing iyo qodobkeen labaad wuxuu noqonaa Google AdSense-ga qodobkeena koowaad oo online lagu shaqeysto waa digital marketing iyo qodobkeen labaad wuxuu noqonaa Google AdSense-ga labadaas ayaan waxaan rabnaa inaan faahfaahin ka bixino sida ay u shaqeeyaan haddii aad baratidna waxaan rajeynaa insha Allah wax badan nafsadaada inay isbedel muuqda ka imaan doona insha Allah digital marketing waa online-ka waxyaabaha lagu iibiyo waxaa hoos imaanaya sida Facebooka Instagramka Twitterka waxaa kaloo hoos imaanayo Snapchatka YouTubeka TikTokka ay platform oo online-ka wax lagu soo gudbiyo qof walba user-ka leh waxaa loo adeegsadaa in wax lagu soo bandhigo product-ga digital marketing waxaa lagu soo bandhigaa badanaa sida product cusub inaad keentay macaamiishaada inaad u soo bandhigtid waxay u baahan tahay inaad warbixinta Google-ka ama Facebooka ama YouTube-ka inaad ku soo bandhigtid taas process waxay qaadanaysaa waa inaad taqaanaa xirfadaha design-ka loogu shaqeysto iyo video-ga marka baratid design-kaasi ama video-gaasi waxay ku suurtagelinaysaa online-ka inaad ka shaqeysan kartid waxaa laga yaabaa customer inuu ka soo dalbado inaad u samaysid product-ga design-kiisa way ku fududahay adigana inaad mar walba design qurux badan u samaysid macaamiishaada si ay ugu faa'iideystaan mar walba ciwaankeena qodobkeena labaad wuxuu noqonaa Google AdSense-ga Google AdSense waxaa lahaa
inaad kala shaqaysid google-ka. Sida google-ka inta badan waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah shirkada waxay imaanaysaa google-ka ama waxay ka dalbanaysaa iyadoo message joogta in xayeysiin lagu sameeyo dhammaan facebookyada ama meelaha website-yada badan ugu caansan waxaa facebooka iyo instagram-ka, twitter-ka iyo website-yada iyo youtube-ka. labadaas google adsense-ga waxaa hoos imaanaya haddii waxaa aragtay inta badan xayeysiinta aad ku aragtay warbixin marka website aad ka booqanaysid waxaa lagugu soo bandhigaa qayb yar oo lagu dhahay qaybta xayeysiinta ama qaybta kale ku sii qaybta website-kaas aad u aadid. taas waxaa la qayb yar google adsense-ga. haddii aad leedahay website-kaas xayeysiin aad u furato waxaa laga yaabaa kliktaas ku sii qofkaasi inaad lacag badan aad ka shaqaysatid. ku qorshaysan tahay sanadkaada qorsho fiican sanadkii hore ma kugu dhamaaday sanadkaana qorshe fiican oo sanadkii hore ka doon kuu diyaarsan yahay. insha Allah haddii kuu diyaarsan yahay meeshaad kasii wada haddii kuu diyaarsan yahay insha Allah ila soco mar walba waxaan soo diyaarin doonaa sanadkaani wax walbo aad ka faa'iideysan kartid insha Allah. step by step ayaan kula wadaagi doonaa. mar walbana u diyaar garow muuqaalo taxana ah insha Allah inaan la soo gudbiyo oo qof walbana ka faa'iideysan karo. hadda waxaan noo yaal meeshan waa book qorshaha waxaan ugu degsan sanadlaha ah. waxaa laga yaabaa inay ka dignaadaan maalin walba ama update cusub in uu soo darsamo. qorshahaas inaad saas u diyaarsatid mar walba maalin walba waxaad qaban lahayd inaad qabsatid qalinkaada iyo warqadaada kula socdaan. laakiin waxaa kaaga fudud inaad samaystid noodka taleefanada lagu shubto. waxay kaa caawinaysaa noodkaasi wax walba update noodkaada inaad kusii nood garaysatid. wixii update maalmahaasi waxaa jiro nood oo google ku wato android ku wato. waxaa jiro barnaamijyo kaleete oo muhiim ah oo loogu talagalay in noodka loogu samaysto. barnaamijyadaas waxay kaga caawinayaan sida warqad adigoo qoray camal waay warqada. laakiin waxay u baahan tahay wax markaa qortid inaad dib u deleedid waaye oo markaasi dib u dayactirtid aad delete garaysid kadibna aad soo bilaadid. warqada waxay noqonaysaa inaad iska delete garaysid ama aad iska gaysatid. laakiin noodka wuxuu ka anfacaa qoraalkii isla markii erey aad rabtid inaad ka bedesho isla markii edit inaad dhahdid waa ka bedel kartaa waana ku dar kartaa. laakiin waxa inta ugu horeysa intaadan diyaar gareeyin noodka warqad iyo qalin soo qaado noodkaada degso sanadkan waxaad ku shaqaynaysid iyo wax walba cusub. waxaan kula talinayaa insha Allah inaad baratid xirfado cusub oo sanadkan sanadkii hore ka duwan. haddii aad baratid xirfado hore aad ku shaqaysay waa okay. haddii xirfadaas aad ku shaqaynaysay insha Allah xirfado kale baro oo ka duwan wixii hore aad u baratay sanadkii hore. sanad walba waxaad ka baran doontaa cashir ayuu ku noqon doonaa sanadka cusub insha Allah. waxaan rajeynayaa inaan isla socon doono oo muuqaalo taxana ah. inta badan waxyaabo badan ayaa youtube iyo facebook ku jiraan oo cashiro taxana ah oo ka faa'iideysan kartid sida photoshopka iyo waxyaabahaasi iyo video editing-ka inaan mar dhow aan soo gudbin doono ayaan qayb ka ahay insha Allah. gaarsii intaad awoodid sanad cusub oo wanaagsan ayaan ku leeyahay insha Allah. waa inuu mar kale iyo muuqaalo kale xiiso badan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.